imtixaanaadka shahaadiga ah ee Somaliland ayaa si rasmi ah loogu fadhiistay gobolka Togdheer 1714 arday oo reer Togdheer ah ayaa saaka u fadhiistay imtixaanaadka kuwaasi oo isugu jira hablo iyo wiilal. Maamulka gobolka Togdheer ka wasaaradda waxbarashada taliska booliska ee gobolka Togdheer iyo kormeerayaal ka socday wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa indheeyay habsami u socodka imtixaanaadka ee dugsiyada saaka lagu galay imtixaanaadka. Ardayda ayaa guud ahaanba buuxiyay shuruudihii imtixaamka iyagoo qalabkii ka hortaga cudurka coronavirus-na xidhay. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa ka warbixiyay qaabka imtixaanaadku uga bilaabmay gobolka Togdheer. maanta oo maalin sabti ah taariikhduna ay tahay 27 waxa si rasmi ah u bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada afraad ee gobolka Togdheer ee kaasoo guud ahaan dalka oo dhan maanta 8 subaxnimo ka bilaabmay. gobolka Togdheer 1774 arday ayaa saaka u fadhiistay guud ahaan waxaanay ku galayaan 30 goobood oo 26 ay magaalada gudaheeda yihiin 4 gooboodna ay dibadda magaalada ay ku yaalaan ama 4 goobood waxa weeyaan dibadda waa goobi waa Beledhig goobina waa Cali Ciise goobina waa Qoryaale goobina waa Beer. Warda Maxamuud Cali agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa sheegtay inay si habsamiya oo gobolka Togdheer uga bilaabmay imtixaanaadku. waxaan rajaynaynaa 3 goobood ee lagu galay gobolka Togdheer ahaan guud ahaan ay 26 ka mid yihiin burco gudaheeda inaanu anaguna kormeerno bal aan eegna habsamay socodka imtixaanka sidoo socdo iyo qaabka uu dhacayo. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaale dhexe Cali Maxamed Faarax ayaa sheegay in boolisku sugeen ammaanka imtixaanaadka iyo goobaha imtixaanaadka lagu galayo. saaka imtixaanku wuxuu bilowday si nabadgelyo dhowr iyo 30 goobood ee gudoomiyuhu sheegay ciidanku wuxuu ku sugnaa 6 subaxnimo ayuu ku sugnaa si ay u fuliyaan amarka iyo taliyaha ciidanka amarkiisii iyo awaamirtii ka soo baxday xagga waxbarashada. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer ahna gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo ayaa guud ahaanba sheegay in si nabada oo qurux badan uu gobolka Togdheer uga bilaabmay imtixaanaadku. imtixaankii shahaadiga ahaa ee runtii ardaydii muddada faraha badan ee wax soo baranaysay maanta sanadkii u dambeeyay ay u fariisteen. allahaas ayaan u mahad celinaynaa alxamdulillaah baan leenahay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii u dhabar adeegtay ka soo shaqaysay maanta inaynu ardadii ay imtixaanka ay u fariistaan oo ay galaan. ilaahay fadligiis weeyaan cid kastoo ka qayb qaadatayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. insha Allah tacaala waxaan u rajaynayaa 13 goobood ee Togdheer lagu galay maanta iyo ardadoodaba guul baan u rajaynayaa iyo sidii lagu yaqaanay reer Burco reer Togdheer ardadeeda. Cabsa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.